khilaaf siyaasadeed oo qaatay in ka badan 30 maalmood isla markaana ka dhashay diidmadii xilka qaadisay madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle Dr. Maxamed Cabdi Waare oo ku sameeyay 8 bishii 6 ee sanadkan gudoomiye hore gobolka Hiiraan Yuusuf Axmed Hagar oo isugu diiday in xilkaasi uu wareejiyo ayaa lagu guuleystay in xal laga gaaro khilaafkaasi sida ay shaaciyeen xildhibaano ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya oo muddo ka badan 20 cisho u joogay magaalada Beledweyne sidii xal looga gaari lahaa xalinta khilaafka ka jira gobolka kadib shir jaraa'id oo ku qabteen magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka xildhibaan Nuur Iidow Beyle oo kamid ah mudanayaasha baarlamaanka dowladda Soomaaliya ayaa sheegay in khilaafkii xal laga gaaray gudoomiye Yuusuf Axmed Hagarna oo aqbalay xilka qaadistii lagu sameeyay maalinta biritaan ay dhici doonto xil wareejinta gudoomiyaha cusub ee gobolka Yowliba gudoomiyaha hore ee gobolka Hiiraan Yuusuf Axmed Hagar waxaa xalay soo gabagaboobay buuq bariyahan ka taagnaa maamulka gobolka Hiiraan oo ku saabsanaa khilaaf ka dhashay gudoomiye Yuusuf Hagar Axmed Yuusuf Dabageed oo la bedelay laguna bedelay nin kale oo la yiraahdo gudoomiye Cali Maxamed Caraale nasiib wanaag muddo bil ku dhow waxa noo suuro gashay in ay xalay khilaafkaas u dhamaado laguna gabagabeeyo si nabadgelyo ah insha Allah ta'ala waxaan filaynaa in berri ay xil wareejin ka dhacdo maamulka gobolka laguna wareejiyo gudoomiye cusub arrintaas waxa ka shaqeeyay waxgaradka gobolka Hiiraan haday yihiin siyaasiyiinta waxgaradka haweenka ururada bulshada looma kala harin waxa kale oo ayadana suuro galiyay in arrintaas u dhamaato xildhibaano ka tirsan gobolka Hiiraan oo laga doorto meeshan مثلا baarlamaanka federaalka ah oo muddo bil ah joogay arrintaas iskuna xil saaray iskoodna u yimid muddadaas bishaan ku dadaalay inay qanciyaan nimanka walaalahooda ah oo ay wada shaqeeyaan halkan isku wareejiyaan si fiican ay ku dhamaatay way gabagabowday insha Allah ta'ala birina waxaan diyaari doonaa xil wareejintii labada gudoomiyihii xilka baneeyay iyo midka cusub oo xilka imaan doona waxaan rajaynaynaa in dadweynaha gobolka Hiiraan say u dhanyihiin ay la shaqeeyaan maamulka cusub maamulkii horena ay sugootiyaan si nabadgelyo ah arrintaasi dadka way farxad gelin doontaa annagana waana farxad gelin doontaa maamulka Hirshabelle way farxad gelinaysaa bulshada gobolka Hiiraan meel kasta oo joogaan dal iyo dibad ayaa waxa maalmihii ugu dambeeyay ka dhul sugayeen halka uu ku dambeyn doono khilaafka siyaasadeed ee ka jira gobolka xildhibaan Samiire iyo waliba xildhibaan Maxamed Xasan Ibrahim Qoon oo kamid ah mudanayaasha baarlamaanka ee maalmihii ugu dambeeyay u joogay magaalada sidii arrintaasi xal looga gaari lahaa ayaa bulshada gobolka Hiiraan ugu bishaareeyay in khilaafkii ay ka walwalsanayeen bulshada gobolka halka uu ku dambeyn doono lagu guuleysay waxaana ay u mahad celiyeen madaxweynaha maamulka Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare gudoomiye hore ee gobolka Hiiraan Yuusuf Axmed Hagar oo aqbalay inuu xilka wareejiyo waliba cid kasta oo gacan ka geysatay xalinta khilaafka siyaasadeed ee ka jira gobolka waxaana ay soo dhaweeyeen maamulka cusub ee loo magacaabay gobolka bulshada gobolkana ka dalbaday inay la shaqeeyaan maamulka cusub ee loo soo magacaabay gobolka Hiiraan bulshada reer Hiiraan dal iyo dibad meel walba ay joogaan runtii muddo ku dhawaada bil waxay sugayeen dadka reer Hiiraan in dhagahooda wax fiican maqlaan inuu khilaafkan dhamaado sidii walaalahay sheegeen annaga waxaan ka midnaa xildhibaanadii ku matalayay dawladda dhexe ee federaalka waxaan halkaan u soo gaarnay annagoo 9 xildhibaan ah iyo senator iyo wasiirka uu hogaaminayay inaan khilaafkaas aan wax ka qabanno runtii khilaafkii oo ka dhashay isbedelkii maxay ahayd toole maamulka isbedelkiisii khilaafkii ka dhashay waxa ilaahay mahadiis ah aan maanta u sheegaynaa bulshada reer Hiiraan meel walba ay joogaan kuwa dibadda ku nool iyo kuwa gudaha joogaba ay naga dhur sugayay inuu arrinkii khilaafkii oo maanta habeenkii xalay ahaa uu ku soo gabagaboobay meeshii ay ku haboonayd in maamulkii la magacaabay iyo kii hore u joogay ay xilkiisa nabadgelyo isugu wareejiyaan maxay ahayd toole meeshaasna ay is-afgarad iyo wanaag iyo walaaltinimo ay ka bilaabato runtii madaxweynaha aad baan ugu mahad celinayaa intaan muddadan halkaan joognay runtii aad buu noogu dabacsanaay wuuna dhageysanayay intaas aadna wuu noola shaqeynaya asagana aad baan ugu mahad celinaynaa maxaa yeelay guushanba ma gaari lahaynin haddii aanan maxaa la dhahaa dhaganuglaantaas aysan jiri lahayn waxaan sidoo kale u mahad celinaynaa gudoomiyihii hore ee xilka ka degay Yuusuf Dabageed oo asagana runtii aad noogu dhaganuglaay oo go'aan geesinimo leh qaatay si wanaagsan noola shaqeeyay marka waxaan leeyahay bulshada reer Hiiraan dadkan la magacaabay ama hoggaanka idii haya ama annaga markaan isku adeegayaalanahay haddana adika nala shaqeyninaha hadda dhaqantiin aqoon-yahanadii bulshada qaybaheeda kala duwan inta aan halkaan joogno runtii gacan weyn ka geysteen
ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu ma aragtaa isbeddelka cusub ee hadda bilaabanayo inuu isbeddel ummaddan waxtara oo horumarkooda ka shaqeeya oo runtii bulshadan meel walba ka dhibaataysan oo colaadaha hareeyeen oo dhibaatada hareysay oo abaaraha ay mararka qaar fatahaadaha u dheer yihiin ilaahay waxaan ka baryayaa maamulkiisa mata bixin lahaa inuu maamulkan ilaahay ka dhigo annagana waxaan leenahay waan ku soo noqon doonaa insha Allah waana la shaqeyn doonaa sidaas si lamid waxaan ka codsanaynaa bulshada aan baaq ugu dirayaa bulshada reer Hiiraan meel walba ay joogaan inay maamulkooda ay gacan siiyaan inay garab istaagaan inay mar walba si dhow ula shaqeeyaan runtii xildhibaano federaalka Soomaaliyeed ka tirsan oo gaarayo 9 xildhibaan ayaa soo gaaray magaalada Beledweyne waqti laga joogo muddo 17 ka hor ah annagoo u nimiday arrimaha gobolka ka tagnay ama ha ahaadaan siyaasad ama ha ahaadaan dhaqan waxay buuqi ka dhashay isbeddelka lagu sameeyay gobolka gudoomiyihii hore Yuusuf Axmed Dabageed gudoomiyaha cusub Cali Maxamed Caraale arrintaas ayaan u nimiday heer kasta ha soo marto annagu xildhibaanadii Soomaaliyeed oo ayaan nahay xildhibaanadii gobolka ayaan nahay xildhibaanadii dadkan ishayay ku sii dhawaa ayaan nahay waxaan u nimiday in arrintaas aan xalino ay ku dhamaato arrin nabadgelyo ah ay ku dhamaato isafgarad ay ku dhamaato walaalnimo heer kasta soo martay arrintaas madaxweynaha Hirshabeelle oo mahad celinaynaa Maxamed Cabdi Waare oo naga aqbalay soo jeedinteennii Yuusuf Axmed Dabageed oo gudoomiyihii hore ee gobolka Hiiraan ahaa oo aqbalay isagana in uu xilka ku wareejiyo walaalkii wax kasta ha jiraane naga aqbalayna waxaan leenahay waa mahadsantahay asagana waxaan kaloo mahad celinaynaa waxaan soo dhaweynaa gudoomiyaha cusub Cali Maxamed Caraale oo aan leenahay ilaahay xilkaada ha ku garab galo wixii aan la qaban karnana waa la qaban doonaa insha Allah taala sidii markii hore baan kii hore u garab taagnay aan garab istaagayna idinka bahada saxaafadda waxaan ka codsanayaa dadka waxa jiheeyay maanta waa idinka ninkii horena wanaagiisa inaad ku abaalmarisaan ka soo socdana alla shaqeysaan ummadana waa gelin fiican oo sameeysan marka insha Allah taala waxaan leeyahay gudoomiyaha cusubne nin wax qabto oo ummadiisa iyo dadkiisa qanciyo oo bulshada madaxda looga dhigo soo dhaweeyo ayaan u rajaynaynaa Yuusufna yani waa xilka wareejina haduu ilaahay la Britole insha Allah taala waa joogi doona xafladaas waxaan leenahay guul iyo barwaaqo iyo bashbash iyo caafimaad ku dhamaatay rajeer ay ku dhamaatay hawshaas sidii la rabay ku dhamaatay walaalnimo ku dhamaatay isafgarad ay ku dhamaatay ragaas way soo yimaadeen wixii ka dhaxeeyay way iska cafiyeen madaxweynaha Yuusuf Dabageed waa suuqeyn wixii ka dhaxeeyay iska cafiyeen waxa diyaar hadda loo yahay wada shaqeyn iyo walaaltinimo iyo iskaashi anagu dhamaan xildhibaanadii baxay iyo kuwa hadda jooga waxaan ka nahay wakiil waayo iyaga hawsha nooga tagay ninba uu dano yeeshay dantaasna wadan oo mid caam ahaato mid gaar ah ahaatee annaga ayaa mas'uulka wakiilka ah oo wixii aan qabanay waxaan qabanay iyagana la qabtay sidoo kale Xuseen Cisbaan oo ka mid ahaa dadkii ka qayb qaatay sidii xal looga gaari lahaa khilaafka siyaasadeed ee ka jira gobolka ayaa isna halkaa ka hadlay alxamdulillah ana waxaan ka mid ahay odayaashii ay xildhibaanadu sheegeen oo gobolka oo muxuu ahay aad uga qayb qaatay inay muxuu ahay arrintaas suuro geliyaan oo inay muxuu ahay hergasho alxamdulillah intii la mid ahayd iyo intii odayahayna ayagana waa u mahad celina oo ka qayb qaadatay waxaan kaloo u mahad celina maamulka Hirshabeelle oo madaxweyne leh oo gudoomiyihii la magacaabay leh oo ayaguna haddii alxamdulillah si fiican noola shaqeeyey oo maaragtay inay arrintan uu suuro gasho ka mid ahaa aad noogu howl fududeeyey waxaan kaloo u mahad celinaynaa ninkii buuqura ka bilowday ee gudoomiyihii hore ahaay oo si uun asiguna naga ayiiday oo naga qaatay wixii anagu aan muxuu ahay masaalaxo iyo aan ugu joognay meesha geesa kale xildhibaan Maxamed Xasan Ibrahim Qoona ayaa bulshada gobolka Hiiraan kula dardaarmay inay u tartamaan wanaaga iyo waliba horumarinta gobolka Hiiraan dadku Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri tartama wasaari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fi saraa'i wal dharaa'i wal kaadhimina al-ghayza wa 'aafina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin dadku waxa tartama u tartama janno u tartama Ilaahay maghfiro u tartama dambi dhaaf laakiin laba dhihin ku tartama xil iyo dhaqaale iyo u tartama waxay la tahay marka dadka waxa Ilaahay amaanay oo magaranaysa u tartama janno u tartama maghfiro ila maghfirati min rabbikum wa jannati 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin jannada waxa loo diyaari alladina yunfiquna fi saraa'i wal dharaa'i marka waxaan leenahay dadka reer Hiiraan inay isku tartamin dhaqaale inay isku tartamin madaxnimo iyo isqabqabsi ay ku tartamaan maghfiro iyo janno يعني إن إسعافيان والكاظمين الغيظ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين إلهي وحو جعل كو إسعافيو إسو صبره وحي دحمري اسك عافيو
waxay la tahay markii saas aan leeyahay waxaan leeyahay dadkan ummaddan reer hiiraan waa dad waxgarad u badan waa dad aqoon-yahano u badan waa dad magaranaysaa xorriyaddii soomaaliya qayb ilbaax ka soo qaatay haddana gobolkan dib u dhac badan ayaa laga yaabaa dowladihii hore jiray inay ka tageen bahda saxaafadda insha allah waxaan idin rajaynaa idinkan inaad ku dadaashaan in ummaddu israacdo oo aad tabisaan wax fiican oo aad khayrkii wax la qaybsadaan lianna haddii gobolkan hadduu horumaro saxaafadda ayaa horumarisay hadduu dib u dhacaan adinkaa dib u dhac ka shaqeeyeen dib u heshiisiinta iyo waxqabadka iyo soo dhaweynta dadka gacan siiya dhalinyaraad tihiin mustaqbalaa leedihiin beri ka maalin waxaa idinka rabaa inaad dadka hogaamisaan madaxda berita idinkaa noqonaysaan waxaan idinka codsanayaa mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad inaad dib u heshiisiinta iyo soo dhawaashaha iyo horumarka aad taageertaan Khalid Maxmed Ismaaciil Kacse telefishinka Somali News beledweyn